madashan ayaa ahayd mid lagu shaacinayay musharaxnimada Maxamuud Axmed Maxamed Shimbir oo sharaxan golaha deegaanka degmada Burco munaasabadan oo ka qabsantay Hotel Deero waxa ka qayb galay madax dhaqameed odayaal waayeel haween dhalinyaro iyo masharaf kale ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay oday Maxamuud Aadan Dheri waxgarad waayeel iyo taageerayaasha musharaxan oo sheegay in hiil iyo hoob la garab taagan yihiin waxaynu halkan isugu nimid doorasho aynu u diyaar garoobayno oo aynu dooranayno الله أكبر محمود شمبر إلهي وحنو كبرينا إنه إلهي نيدين أو إنك أقبله حمان كو دورن من وناك بان كو دورن وحنا كو أجنهي إن ضدك كأن قبض دونتو أو مي هي مقالة بتاكلين دونتو قفك ودونه إنه شقاء درته ده وحبو كو دورنيا waxaynu ugu dooranaynaa waxa ay tahay odaytinimadiisa dhaqankiisa iyo inaynu u aqoonsanahay inuu yahay xildhibaankii aynu u baahnayn ee degmadeennu ay u baahnayd walaalayaal dadka bini'aadamka ah ee xafiisyadeenna imanaya waa laba nooc weeye mid isaga ayaa xafiiska u baahan oo doonaya qofna xafiiska laftiisa ayaa u baahan maxamuud waa xildhibaanada xafiisyadu u baahan yihiin waa shaacinta musharaxnimada xildhibaan maxamuud shimbir sababta aanu maxamuud u shaacinayna waxa weeyaan waa nin u qalma waa nin tolka u baahan waa nin maxay ahayd tole codkii halkuu ka helayay garanayay iyo ciddii u haysay waxaanu taageersannahay oo aanu hiil iyo hoo aanu la garab taagannahay musharaxnimada maxamuud shimbir waxaynu isugu nimi shaacinta xildhibaanka aanu haddii aanu nahay beesha muuse ismaaciil galbeed aanu haddii aad tihiin dadweynaha degan gobolka togdheer aanu idiin soo xullay ee aanu doonayno inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Burco gobolka togdheer musharaxiin badan baanu ka soo dhex saaray muuse ismaaciil qaabkii ay wax ku soo xulan jireen baa lagu soo xulay 25 inoo guddiya loo fariisiyay muddo 12 casho bay fanadayeen shantii inan ee isa soo sharaxay isaga ka soo baxay waxaan leenahay hambalyo haddaanu nahay anagu muuse ismaaciil ka galbeed ee guud ahaan waxa kursigaas maanta yeeshay oo loo gartay ardaaga naga mid ka ah la yiraahdo reer Cismaan Beyle waxay isku soo raaceen oo ay noo soo gudbiyeen ninkaas la yiraahdo Maxamuud Axmed Maxamed annaguna waanu ku taageeray waanaanu dhisaynaa war ma qaadateen oo sida dhammeed ka taw musharaxa ma qaadateen annaguna way la qaadanay gobolku wuxuu u baahan yahay dad dhaqaajiya gobolku wuxuu u baahan yahay dad dadkeediya oo deehinjiya isaguna waa ka mid gabagabadii munaasabadaasi waxa halkaas ka hadlay musharax Maxamuud Axmed Maxamed Shimbir oo u taagan golaha deegaanka degmada Burco ayaa halkaas ka sheegay ballanqaadyo kala duwan anigu waxaan ahay marka hore nin gobolka u dhashay gobolka in badan ganacsato ka ahaa waxbarashadeedii dugsiga hoose ka sare iyo ka dhaxaba ku dhamaystay waxaan maanta anigu halkan ka ballanqaadayaa beesha isoo xushay ee muuse ismaaciil galbeed iyo ta gobolka ta degmada iyo ta qarankaba inaan si sinaan iyo cadaalad iyo wanaag iyo waxbarasho mid walba leh aan wax ugu qabto reerka iyagu marka uu isoo doorto ummaddan anigu u dhaxaynaya oo u shaqaynaya oo waxaan ka shaqaynayaa bilicda magaalada iyo wadooyinka caafimaadka waxbarashada mid kasto waxaan jecelahay inaan horumariyo degmada riyo xidho oo aan si gaar ah layga soo dooranayo imakana layga soo xulay waxa aan ballan qaadayaa iskuulkeeda boardingka ah ee aanu imaka gacanta ku dhisnay ee xidhan in aan ka shaqeeyo sidii loo furi lahaa ardayda ugu horeysa ee kontonka ah in aan anigu bilaabo si ay u dhaqaaqdana aan gacanta ugu horeeya anigu ku yeesho waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.